xukuumadaha oo ah awoodda koobaad ee fulinta dowladda iyo saxaafadda oo lagu tilmaamo awoodda afraad waxaa markasta ka dhaxeeyay xiriir aan fiicnayn isku dhac joogto ah. dowladdii kacaanka ee kalitaliska ee 1969 ilaa 1990 dalka kama jirin warbaahin ka baxsantan dowladdu leedahay, waxayna madaxda ugu badan ee dalka ka talisa ku garaasadeen xaaladaasi aan la ogoleen wax xorriyad ah, taasoo dhalisay dagaaladii sukeeyay iyo burburkii dowladnimada Soomaaliya. dib u dhiskii dowladnimada Soomaaliya iyo shirkii carta sanadii 2000 waxaa kaalinta ugu weyn ku leh saxaafadda xorta ah ee markaas dalka ka jirtay. laga soo bilaabo dowladdii Cabdullaahi Yuusuf waxaa saxaafadda soo wajahay awood sheegasho, caburin iyo hajabaad joogto ah, iyadoo lagula kacay falal isugu jira weerarka xarumaha warbaahineed, xariga saxafiyiinta iyo hanjabaad ay kula kaceen madaxda dowladaha oo adeegsanaya hay'adaha amniga. khilaafkii ugu dambeeyay saxafiyiinta iyo dowladda wuxuu bilowday markii wasaaradda warfaafinta dowladda madaxweyne Xasan Sheekh ay 8 Oktoobar 2022 soo saartay wareegto uu akhriyay wasiir ku-xigeenka warfaafinta xukuumadda federaalka Cabdiraxmaan Yuusuf Al-Cadaala. dowladda Soomaaliyeed waxa ay mamnuucday oo gabi ahaanba ay joojisay nooc kasta oo faafin fikirka argagixisada iyo falalka cabsigelinta ah oo xambaarsan fariimaha khawaarijta nooc kasta ay yihiin. go'aankaas wuxuu ahaa go'aan horay dowladdu u gaartay, qaybo kamid oo ay fuleen, qaybana ay dhimanaayeen. sidaas daraaddeed waxaan rabaa inaan warbaahinta Soomaaliyeed iyo guud ahaan dadka Soomaaliyeed u sheegno in arrintaas loo aqoonsanayo in ay tahay faldambiyeed. dad badan ayaa iyaga oo aan ogeyn oo laga yaabo inaanay ku baraarugsanayn waxa dhex mara faafinta fariimaha argagixisada, in qof kasta uu hubiyo fariinta dhex maraysa aaladda warbaahineed ee uu isticmaalo, ama ha ahaato social media ama ha ahaato warbaahin rasmi ah. waa dembi, waxaanan la tiigsan doonaa. wareegtadan oo xor iyo sharci loo okeysiyay waxay xambaarsaneyd amro ay saxafiyiinta u arkeen inay halis ku yihiin shaqadooda, isla markaana aan lagala tashan, kana soo horjeeda dastuurka, xeerka saxaafadda iyo sharciyada caalamiga ah. 4 ka mid ah ururada ay ku midaysan yihiin saxafiyiinta madaxa bannaan ayaa shirkoodii jiraa'id ku cadeeyay mowqifkooda. maanta annagoo wakiilka ururada SNSJ ku wada jira kala ah Simha, Soma, Fesoj iyo SJS waxaan halkan u taaganahay inaan ka hadalno amarkii ka soo baxay wasaaradda dowladda ka soo baxay ee wasiir ku-xigeenka wasaaradda warfaafinta uu ku dhawaaqay. marka annagu waxaan ka shaqaynaa xuquuqda wariyaasha. ma rabno in wariyaasha ay noqdaan qaar meelaha lagu bacsado hadhowda dowladda ay bacsato. arrintaasi waxay ku tahay foolxume ku tahay dowladda laftigeedii. wariyaasheeda hadday maanta warka ka aamusaan, macluumaad ay waayaan, maxay dadka siinayaan? macluumaadka dastuurka ay soo xigteen haddaan la sii xiganno waxaa waaye macluumaadka inaan helno waaye wariyaal haddaan nahay. macluumaadka dowladda laga helo, meel walba laga helo. hal la aamusay marka noqonaysaa. intaasaan ku gaabinaya Cabdalla igaga dambeeyo. wareegtada dowladdu oo ay ku jireen erayo maldahan oo aan qeexnayn waxaa laga yaabaa inay dhaliso xanibaad, la xanibo awooddii ay saxafiyiintu u lahaayeen inay si xor ah u tabiyaan howlgallada socdo ee ka dhanka ah Al-Shabaab. waxaa kale oo laga yaabaa in dadweynaha Soomaaliyeed laga xadido helitaanka macluumaadka la xiriira howlgallada amni ee jira. dib markii Sabtidii wasaaraddu ay soo saartay warkaas, waxaa arrintaas horseeday in hay'ado warbaahineed oo annagu aan diiwaan gelinay qaarkood lagu qasbay inay ka saaraan warbaahintooda falcelintii Al-Shabaab ka soo baxday ee amarka dowladdu ay uga jawaabayeen. dhowr wariye oo nala soo xiriirayna waxay noo sheegeen inay awoodi waayeen in xogtii ay hayeen ay la wadaagaan bulshada. dowladda oo sida muuqata u cuntami weyday falcelintii ka timid ururada saxafiyiinta waxay si gaar ah u beegsatay mid ka mid ah madaxda ururadii soo saartay war-saxaafadeedka saxafiyiinta oo habeenimo xafiiskooda ay tageen ciidamo af xiran. kadibna waxay 10 Oktoobar 2022 garoonka Muqdisho ka qabteen xogayaha ururka SJS Cabdulla Axmed Muumin oo safar ugu socday dalka Kenya. ma caddayn sababaha keenay in si gaar ah loo beegsado xogayaha Cabdulla Muumin iyadoo loo adeegsaday ciidamada sirdoonka iyo Nisa, isagoo lagu xiriyay xabsiga Nisa ee godka Jilicow oo habeen uu ku qaatay, kadibna loo wareejiyay xarunta CID-da. sidoo kale lama caddayn cidda amartay xarigiisa oo ay sharci darro ku tilmaameen saxafiyiinta iyo qareennada u doodayay. Cabdalla maanta waxaa la horkeenay maxkamadda gobolka Banaadir
saakay ayaa sida naloo sheegay waxaa lagu wareejiyey xarunta dembi baarista ee CID maanta waxaa la hor keenay maxkamadda gobolka Banaadir laba arrimood ayaa sheegeen CID-du sheegtay in lagu eedeynayo oo loo heesto arrinta koobaad waxaa waaye inuu jibiyey xeer ka soo baxay wasaaradda warfaafinta arrinta labaad waxaa waaye inuu baahiyey muuqaal sir ah waxaa la weydiiyey muuqaalka sirta ah iyo xeerkii markaas diyaar uma hayn waxaa maxkamaddu ay amartay in Cabdalla maxkamaddu lagu soo celiyo maalinta Axadda oo soo socoto lana keeno xeerkii ka soo baxay wasaaradda warfaafinta ee uu jibiyey iyo muuqaalka sirta ahaa ee uu baahiyey isu soo bax qayladhaan iyo shir jaraa'id oo ay qabteen saxafiyiinta kadib ay wasaaradda warfaafinta soo saartay war saxaafadeed ee isaga fogeysay xariga wariye Cabdalla Muumin waxaana qoraal ay soo saartay 12 Oktoobar ku cadeysay wasaaraddu waxay cadeynaysaa in Cabdalla Muumin aan loo haysanin eedo la xiriira shaqadiisa saxaafadda حرق عبد الله حق معهن حير معهن عبس قلين دوني مينو عبورين دوني مينو عبس قلين دوني مينو عبورين دوني مينو subaxnimadii 13 Oktoobar ayaa wariye Cabdalla Muumin lagu wareejiyay xarunta CID-da waxaana duhurnimadii maalintaasi la horgeeyay maxkamadda gobolka Banaadir balse waxaa la yaab ahayd in lagu soo oogay eedo ku saabsan inuu jabiyay xeer ka soo baxay wasaaradda warfaafinta iyo qodob ku saabsan faafin sir amni sida uu sheegay qareenka wariyaha maxkamadda waxay CID-da ka dalbatay inay keenaan cadeymaha xeerka uu jabiyay iyo muuqaalka sirta ah ee ay ku eedeeyeen inuu faafiyay waxaana wariye Cabdalla Muumin dib loogu celiyay xarunta CID-da mar labaad waxaa Cabdalla Muumin la horgeeyay maxkamadda gobolka Banaadir Axaddii 16 Oktoobar 2022 iyadoo CID-da iyo xeer ilaalinta laga sugayay eedeymo rasmi ah oo cadeymaheeda wadata balse waxaa dhacday in eedihii hore loogu jeediyay isbeddel lagu sameeyay waxaana markaan lagu soo oogay 3 qodob oo kamid ah xeerka ciqaabta Soomaaliyeed oo kala ah 219 321 iyo 505 waxaa meesha laga saaray qodobkii faafinta sir ciidan Cabdalla Axmed Muumin eedii ay u soo jeedisay xeer ilaalinta eedaasoo ku artikuladan ee kala ah 321 iyo 219 iyo 505 eedaasi uusan Cabdalla raad iyo salna midna ku lahayn qodobada ay soo diyaariyeen xeer ilaalinta ee dawladdu haysato wariye Cabdalla Muumin waxay kala yihiin qodobka 321 oo ku saabsan ku buurin in sharciga laga hor yimaado waxaana ku xusan ciqaab xarig 6 bilood ilaa 5 sano ah qodobka 505 oo ciwaankiisu yahay dhowrid la'aanta amarada maamul ciqaabta uu watana ay tahay xarig ilaa 3 bilood ah amba xarig iyo ganaax marka meesha xurriyaddu ma taala waxaa la rabaa in la yiraahdo saxaafadan ku soo dalbanaya oo saxafi baan ahay oo waxaan ahay xurriyadda ka shaqeeyahay oo ka shaqeeyahay waxa cid ogol ma jirto qodobka 219 oo ka hadlaya cambaareynta ummadda ama qaranka kaasoo wata ciqaab gaaraysa 6 bilood ilaa 3 sano ah ma jiro wadan intuu xukuumaddiisu dagaal galay intuu nin iska soo istaago uu yiraahdo anigu saxafi baan ahay oo yeeli maayo waxa wax soconayana ma laha adduunka meel uu ka jira carwo kaas soo sheeg waxaas la akhrinayaa haddana waxaa la rabaa in la yiraahdo saxaafadan ku soo dalbanaya oo saxafi baan ahay oo waxaan ahay xurriyadda ka shaqeeyahay oo ka shaqeeyahay waxba kama jiraan waxaas Mareykanka ku sameeyo wakaas meelaha adduunka ugu xurriyadda badan bal waxaas laga sameeyo cid ogol ma jirto maxkamadda gobolka Banaadir ayaa la noqotay damaanada uu banaanka ku joogay wariye Cabdalla Muumin waxaana galabnimadii 18 Oktoobar 2022 mar kale laga soo qabtay garoonka Muqdisho balse maxkamadda racfaanka ayaa mar kale dib ugu soo celisay damaanadii isagoo laga sii daayay xabsiga nuxurka dacwadda lagu soo oogay wariye Cabdalla Muumin iyo eedaha lagu soo oogay oo ka baxsan xeerka saxaafadda lagana dhigayo arrimo amni iyo dagaalka al-shabaab lagula jiro waxay xaaladda ka dhigeen mid cakiran oo saxafiyiinta loo adeegsanayo in lagu shaabadayo al-shabaabnimo looguna yeelo dembi culus dawladdu tallaabo ka qaaday wayna ka qaadi doontaa cidii isku dayda waxaas waxay ahayd siyaasad xumo in dawladda madaxweyne Xasan Sheekh ay xilligan gasho dagaal saxaafadeed
halkii wasaaradda warfaafinta la imaan lahayd qorshe lagu mideeyo warbaahinta oo lagala tashado sida loo wajahayo xaaladda lagu jiro marka sharci ahaan la isla meel dhigana laga ilaaliyo xuquuqda dhinac kasta. waxay ahayd arrin laga xumaaday in markii madaxda qaranka iyo mas-uuliyiinta xukuumadda ay amar ku bixiyeen xarigga muwaadin wariye ah aysan jeclaysan aragtidiisa iyadoo aan loo marin amar maxkamadeed, taasoo ah sharci darro aan isbedelin muddo 20 sano ah. waxaa kaloo nasiib darro ahayd in hay-adaha xeer ilaalinta iyo dibi baarista eeda ugu raadiyaan qof wariye ah xeerka ciqaabta iyadoo uu dhaqangel yahay xeerka saxaafadda oo dacwooyinka loo haysto wariyaasha ay tahay in loo maro. waxaa iyadana lama filaan ahayd in ra-iisul wasaaraha xukuumadda uu meel fagaaraha khudbad ahaan uga akhriyo qodobadii ciqaabeed ee lagu soo oogay xogayaha ururka SJS Cabdalla Muumin isagoo isku xiraya go'aankii uu akhriyay wariyaha iyo al-shabaab. isku dayga wasaaradda warfaafinta ee ah in kiiska wariyaha Cabdalla laga saaro mid la xiriira shaqadiisa saxaafadeed si dambi ciqaabeed lagu raadiyay iyo hadalkii ra-iisul wasaare Xamsa waxay caddeyn u yihiin in dagaalka al-shabaab xukuumad u adeegsanayso saxaafadda si ay warbaahinta madaxa bannaan ugu shaqayso rabitaanka madaxda dowladda. kiiska wariyaha Cabdalla Muumin wuxuu dibadda u soo saaray qaabka ay u fikirayaan madaxda qaranka xilligan joogta, waxaana la ogaan doonaa sida garsoorku ugu cadaalad falo una qaato go'aan aan lagu cadaadin. waxaana ka digaynaa amniga suxufiyiinta oo awalba khatar ku jiray in mar kale khatar la geliyo. yaan lagu ciyaarin. haddaad adigu baawur bullet proof wadatid, haddaad ciidan wadatid, saxafiyiintan ma haystaan, intaasba ma haystaan. amnigeenna iyo amniga suxufiyiinta khatar ha gelin.